haddaan taariikhda la fahmin factska iyo runtana waa laga been sheegaa. kow, dagaaladan Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya 1992 waa socdeen, 93 waa socdeen, 94 OPDO iyo OLF oo isku dafan ayaa jigjiga soo weeraray sabayna inay ka saaraan ONLF iyo xafiisyadii Soomaalida xilligaas. waqtiga marka laga soo bilaabo ilaa 2004kii dacdooyinkaasi way dhacayeen, Soomaalida waa la gardareysanayay. waxa sal u ahaana Oromada oo OPDO-da xulif ay leeyihiin TPLF-ta iyo EPRDF-tana kamid ahaayeen baa hadii jeer Soomaalida ka gacan sareeyeen. taasi waxay keentay dulal Soomaaliyeed si khalad ah in Oromo u xoogto. Munirna uu og yahay hadduu deegaanka ka yimid dulal badan oo Soomaali leedahay, jinacsan iyo Baabil habo ugu horeeyaan iyo dhinaca mooyaale xoog bay Oromo ku qaadatay. 2004 macmal loo sameeyay oo doorasho ku sheega baa lagu xoogay. raggan maanta la qabqabanaya ee Maasho iyo Samoore iyo raggii hirgeliyayna weeye dhacaas iyagoo OPDO-da gacan saar la leh. sideedaba ha ahaatee in laga heshiiyo dib la isaga arko waan u baahanahay wada hadal. waxaan u malaynayaa ama dawlad deegaanka cusub ha noqoto ama shacbi weynaha Soomaaliyeed ha noqoto, uma kala harsana Soomaali in ay nabad hesho, sababtoo ah meesha ay taagan tahay bay Soomaali ogtahay. kaliya aanu ku dheeraan maayo. waxa kaliya oo sheegaya I think Cabdinuur adaa kaga dhawaajiyay Munir inuu anaga nooga sokeeyo dawladda dhexe waa caddahay. wax aanay dadkayaga 30 sano ilaa 40 sano research iyo cilmi baaris ugu soo jiray arrimaha deegaanka sira aanan ogeyn baa ninka caadiga ee Oromoga maanta ugu yahay. waxa kamid ah dawladda markii la afgambiye dawladii Cabdi cidda soo baxaysa Jawaar uu soo dhigay bartiisa Facebook Twitterka. Jawaar waa kuma hadda Jawaar Maxamed waa ragga ka dambeeyay dhibaatooyinkan hadda arliga ka dhacaya. runtiina haddii cid la soo taagayo maxkamad lama magarsa inta ka sokaysa Jawaar Maxamed in la soo taago oo la baadho wixiisa oo waxa la yiraahdo ethnic hate language ama kicinta ummadda lagu kicinayo isnacayb iyo istil haddii cid Ethiopia ay waxun ku leedahay Jawaar Maxamed uu ku leeyahay. laakiin sidaas oo sheeg Faisal waa maasan tahay, laakiin eedahaas hadda aad shakhsiyaadkaas Oromada aad u jeedinayso caddayn buuxda uma hayno. urur xuquuqda bini'aadamka oo ka hadlay warbixino ka soo baxay, laakiin bal mudiir baan ku celin lahaa. mudiir cabdi haddaan intaa dhamaysto waxa weeye maan odhan hal la xidho. waxa kaliyan idhi in baaris lagu sameeyo. baaris intaan lagu samayn ka horow macnihii inta aan wax lagu helin ka horow ma raba inaan idhaahdo waa dambiile, laakiin Soomaali badan baa qabta in uu xooga ka dambeeyay ahaa. maya hadda qofku isagoo siyaasiya ayuu dadkiisa iyo gobolkiisa iyo u hadli karaa oo olole u geli karaa oo uu wax sheegi karaa, laakiin ma aha in uu hadalkiisa iyo qowlkiisa uu dambiile ku noqonayo. Faisal waa kuu soo noqonaya. daahir mudiir waad maqlaysay Soomaalida waa la gardaraysanaya. cabdinuur waxaan aad iyo aad uga xumahay macal asaf shadiid unfortunately martidaada Faisal Roobe hadalka uu ku hadlay runtii waa hadal aan uusan ka baaran degin, waa hadal aan ka fikirin, waa hadal uu ku degdegay oo runtii ka fog runta Ilaahay aad iyo aad uga fog. Jawhar Mohammed waa nin halgama ah, xaqa u doodayo oo ku doodayo qalin iyo maskax. waa nin sharciyeysan oo Mareykanka degan oo nabadgelyo ah oo u doodayo xuquuqda dhammaan dadka Ethiopia oo dulman. Faisal aad iyo aad runtii waan uga xumay. waa nin aqoonyahan ah. wax uu ku markaati uu ka dhigtay ama daliil uu ku dhigtay oo Jawhar maanta uu ku tilmaamayay. Jawhar wuxuu la halgamayay TPLF muddo 27 sano si xaaraan ah oo dulmi ah. dhammaan 100 milyan shacabka Ethiopia ay haysatay ayuu la dagaalamay qalin iyo wuxuu la dagaalamay maskax. waa qayb libax ayuuna waa tahay taa waa gartay tii Soomaalida marka u soo noqo iyo Oromada iyo waa la gardaraysaa Soomaalida iyo dhul baa laga qaaday. waxaasoo dhan ma jirta miyaad leedahay Cabdullaahi? anigu ma ku tilmaamayo Soomaali baa Oromada gardaraysatay iyo Oromo Soomaali gardaraysatay. labadan qowmiyadood waa dad walaalo oo la isku diray. waxaana la isku diray dadka hadallada ku hadla hadda Faisal Rooble oo ku hadlayo oo kale
ayaa ummadda isku diray colaada dhaxda dhigay oo colaada ما فيصل رب الله هذا أركتدي سئي ورك وهلاي بو كهذا يا أدو هذا حرب أدو تيس حرب وياه نمرنا يا وأندودينا وأندودينا لكن وحال ربا حق إن لجوها الله وحاويان كلمة أدمان تقول لي صبريته والقول حساب تمايا قف كاسي وبل غورماي أوروبا يكدوش الصومالي أوروما دوا أسافر بلاد بمريسا غورماي قميصة غورما هير كاس قارتي ما أنت إثبات كان إثيوبيا كدعي أوروما ما هي فيصل سؤال سوي جوابيسا waxaan uga jawaabay runtii mudiir inuu isir dejiyo weeye anigu jawaar waxaan ninkii ku macsuumay shir balaaran oo geeska Afrika looga hadlayo gaar ahaan qadiyada Soomaalida iyo Oromoga 2010 Herman Cohen David Sheen ay ka soo qayb galeen hay'adda looranay IHASA oo nabadeyn iyo horumar iyo development ka waday hata ahaatee intii dambe maxamed jawaar wuu isbedelay anigu ma oranayo cid buu dilay laakiin waxaan aad iyo aad ugu dhowahay elite badan oo Oromo ah inay markii hore khaldanaayeen sida Soomaali kaliba mar hore u khaldanayd oo ay ka qayb galeen hate speech iyo kicinta dadka intaasan ku baxaya kaga baxaya hadda se wixii tagay waa tagay in la soo dhaweeyo nabadgeliyo wada hadal development iyo horumar uu prime minister Abiy Ahmed kaga dhawaajinayo si nidaamsan oo sida udub aan inta dambe ka soo gaaray oo ku degdeg lahayn oo grassroots laga bilaabo waa soo dhaweynayna hadii se wax kasta asaaba looga soo taliyo oo maalin la yiraahdo Soomaaliya kala asaaba shir lagu qabanaya madaxdiisuna ha timaado exactly waxay noqonaysaa sidii Cabdi Maxamed maalin kasta loogu yeelinayo oo lagu dadajinayay anigu waxaan qabaa Mustafa Umar oo nin karti leh hadda uma baahna shir degdega oo arintan lagu xalinayo totally lagu soo afjarayo inuu tago waxa la rabaa inuu dago inuu dawladdiisa dhisto in muddo 3 bilood 4 bilood la siiyo laakiin xabada la joojiyo diga daadanaya la joojiyo laakiin loo sugo Mustafa intuu ishabaynayo uu kadrigiisa iyo candidateska uu soo dooranayo sameeyo hadii kale ninkii on xafiiskiiba fariisan hawsha intan la eg hadaad madaxa ka saarto natiijada ka soo baxda Cabdinuur waxaan garan karnaa inaanay sustainable ahayn ama wax joogto ah aanay noqon karin aad iyo aad baad mahadsan tahay aad baad Faysal mahadsan tahay annaga dhankeena Oromo ahaan dad culama u diin ah wadiyaal ah salaadiin ah waxgaradka oo farabadan dalka gudihii iyo dibadda arintaas oo iyagu isxilqaamay iskooda ayay dhammaan daafaha caalamka iyo qurbaha kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga dhan ayay isku yimaadeen arintaasi waxay hadda joogaan goobta dagaaladu ay ka socdaan dhibaatooyinka ay ka socdo xuduudda dhanka Soomaalida iyo dhanka Oromada waxay la hadlayaan dhammaan shacabka Oromada ee dhibaatooyinkii ama ka qaxeen dagaalkii ama dadkii dagaalka kula jiray ayayna la hadlayaan in dambe colaad dambe ayna sameeysan ka soconin in colaadda la joojiyo la afjaro dhibaatooyinkana ciddii geysatana meesha ay ka baxday Soomaaliduna san colaadsan ku ahayn Oromada Oromadana san colaad ku ahayn dhibaatooyinka Soomaalida iyo Oromadu waa dad isyaqaana waa dad wada dhashay waa dad isku dhaqana waa dad dhibaatooyinka iyo khaladaadkii wixii galay wada xaajood kara oo geed hoostiisa wixii dantooda warmay qabataa maxaan ka sameeyay maxaad iga samaysay sida dhaqan iyo xaajada iyo magarta Ilaahay nagu maneeyo ku wada dhamaysan kara dad fara badan ayaa arintaasi ku maqan wayna ku guda jiraan arintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan inay afjarmayso waanu rajaynaynaa هذه المدة sorry دور شيرنا واي شرطة simply waxa weeye qadiyadan yaa la yareysanin bimacna waa laga heshiinaya odaya kama heshiin karaan qadiyadan waxa dul saaran dul waxa jira pockets dul Oromodana ku dhaxyaala oo Soomaali ku nooshahay dhinaca Soomaalidana ku dhaxyaala oo leeyahay dad Oromo ku nool dadban uu soo baxay jinacsani baa kamida meelaha ugu adag ee Soomaalidu ay insecure ka tahay ama aanay nabadgelyo ka helin jigjiga meel 25 kilomitir u jirto oo weligeedba Soomaali ahayd in si khaladan lagu raaciyo Oromiyo nabadda meelaha ay ka dalooshantay waa meelaha Baabili baa kamida waxaan wax odayo geel lagu dhamayn kara maaha way odayadu waxay dhamayn karaan xabad joojinta